وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وأشهد أن عيسى عبد الله ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وأشهد أن عيسى عبد الله ورسوله. السلام عليكم ورحمة الله. maanta sheekadana waxay ku saabsan tahay gabar diinta kirishtaanka ama nasaarada haysatay oo saaxiib la ahayd gabdho muslimiina oo markasta kitaabka quraanka marka ay baska saaran yihiin iyo marka ay tareenka saaran yihiin ba akhriya. waliba waxay leedahay marmarka qaar ayagoo isu meerinaya ayay kor u akhrin jireen quraanka. waxay tiri waxaan aad uga qiirooday ama aad uga masayray qaabka ay u akhrinayaan kitaabkooda iyo qaabka ay ugu dhow yihiin kitaabka ay aaminsan yihiin. waxay tiri waxaan go'aansaday inaan ku daysado oo sidooda kala sameeyo. taas oo kaliya ma ahan ee waxay tiri waxaan bilaabay inaan dib u xiiseeyo oo barashadeeda u soo laabto diinta kirishtaanka iyo waliba akhrinta kitaabka Bible-ka ah. taasi waxay ii keentay tiri inaan galo qolal baaltoog ah oo looga hadlayo kirishtaanka iyo islaamka iyo isbarbardhigooda oo lagu qabto doodo labada dhinac ah. waxaan dhageystay ayay tiri dhalinyaro muslimiina oo aad u yaqaana kitaabka Bible-ka iyo waxyaabaha ku qoran oo u soo jeedinaya dhaleecayn iyo waxyaabo aan waligay maqal oo ay sheegayaan inay kitaabka ku jiraan. waxay soo qaateen ayay tiri kitaab kamida kitaabka Ahdi al-Qadiimka ama qaybta hore ee kitaabka Bible-ka ah oo la yiraahdo Nashiid al-Inshaad oo ay ku tilmaameen inuu yahay ama la mid yahay kitaab jacayl oo uu qoray qof aan xishoonaynin oo gabar uu jecel yahay xubnaheeda iyo muuqaalkeeda iyo jirkeeda hal u tilmaamaya. kitaabkan waxay ku tilmaameen in uu ka fog yahay kitaab caadi ah iska dhaaf inuu noqdo waxyi ama kitaab xag Ilaahay ka yimid. sidoo kale waxay tiri waxay wax ka sheegayeen kitaab la yiraahdo Xisqiyaal aayado kamid ah oo ka sheekeynaya arrimo gogol dhaaf iyo waxyaabo lamid oo aad u xanuun badan marka dhageysanaysid. laakiin aniga mar walba kitaabka Bible-ka waan aaminsanaa marnaba inuu qalad ku jiro ama wax qaldan ku jiraan igama dhaadhacaynin. waxay tiri marmarka qaar waxaan isku dayay inaan doodahooda soo dhex galo oo aan isku dayo inaan kitaabka difaaco, laakiin waxay ahaayeen rag iiga aqoon badan kitaabka aan difaacayo, sidaa daraadeed wax jawaab uma haynin su'aalaha ay keenayaan. laakiin marnaba aniga isbedel weyn iguma samaynin oo diinteeda kirishtaanka iyo kitaabka Bible-ka qaabkii aan u aaminsanaa waxba kama bedelin. laakiin waxay tiri waxa wali ugu taagnaa masayrkii aan ka masayray gabdhihii muslimiinta ee kitaabkaas akhrinayay kitaabka quraanka ku akhrinayay baska dhexdiisa. sidaa daraadeed waxaan go'aansaday inaan sidoo kale sameeyo oo markaan israacno ay kitaab quraan akhrinayaan anigana sidoo kale aan Bible-ka akhriyo. ayaga kuma dhibaynin, laakiin waxay leedahay waxaan rabay inaan tusiyo Bible-ku inuu sida kitaabka quraanka oo kale meeshii doona lagu akhrin karo. waxay tiri waxa ugu taagneed arrimihii laga sheegayay baaltooga. sidaa daraadeed waxaan doortay kitaabka Nashiid al-Inshaad iyo aayadihii ku jiray Xisqiyaal ee ay wax ka sheegayeen leeyihiin waa kitaab ama aayado wax aan lagu dhawaaqi karin ka hadlaya. waxay tiri maalin maalmaha kamid ah ayaan kitaabka Bible-ka hore u qaatay. waxaan raacay bas weyn oo dad aad u badan ka buuxaan, isla markaana waxaan isku dayay kitaabka inaan furo oo akhriyo. laakiin cabsi aad u weyn iyo walwal ayaa ay galay. geesaha ayaan fiiriyaa maxaa yeelay mar walba waxa ugu taagnaa macnaha iyo waxa dadku ay ka fahmi karaan kalimaadka ama erayada kitaabka ku qoran in akhrinayo. waxay leedahay anigu macnaha iyo wax meesha ku qoran waa fahansanahay, qofka i dhageysanaya macnaha uu ka qaadan karana waa dareensanahay. sidaa darteed waan ku dhiiran waayay, geesnimona waan u waayay inaan kor u akhriyo oo dadku cod ay maqlayaan aan ku akhriyo. dhowr mar ayaan isku dayay, laakiin wadna kurkur iyo waxa ugu dhacay cabsi aad u fara badan iyo walwal aan ku dhiiran waayay inaan kitaabka furo oo kor u akhriyo. waxay leedahay maalintaas gurigeyga ayaan ku soo laabtay anoo aad u murugaysan, aad u naxsan oo su'aalo badan isweydiinaya oo ka mid tahay sidee ku dhici kartaa in kitaab xag Ilaahay ka yimid erayada ku qoran ay noqdaan kuwa aan lagu dhiiran karin in meel public laga akhriyo. muddo yar markaan joogay ayaan waxay tiri waxaan bilaabay inaan raadiyo cid iga jawaabta su'aalaha aan qabo. waxay tiri waxaan u tagay nin baadari ah oo kaniisadda dariska nala ah madax ka ahaa si aan u weydiiyo su'aalaha aan qabo. ninkii baadariga markaan u tagay oo su'aashii weydiiyay
oo aan ku iri maxaa keenay inaan akhrin waayo hadalkii ilaahay kitaab uu ku qoran yahay dadka dhexdiisa ka akhrin waayo erayada ku qoran darteedna aan ka cabsado oon ku dhiiran waayo inaan akhriyo. waxay tiri wuxuu bilaabay ninkii baadariga ahaa inuu warwareego oo su-aalihii uuna toos uga jawaabin oo uu yidhaahdo adaa baqdin ku gashay xaggay ka dhacday iyo waxyaabo lamida marmarka qaarna uu isku dayo inuu muslimiinta xaggeeda iga soo maro oo dhaleeceeyo asagoo dareensanaa inay iga saameyn ugu yeesheen. baadarigii waxaan kasoo laabtay anoo haba yaraatee wax jawaaba u helin su-aalihii ugu taagnaa. waxay leedahay murugo iyo walwal aada u tiro badan ayaa igu soo kordhay. reerkayga ayay waxay dareemeen inaan xaaladaydu caadi ahayn. way u weydiiyeen oo waxay yidhaahdeen maxaa dhacay, maxaad ka murugaysan tahay, dhibka ku haystaa muxuu yahay. kadibna waxay tiri waxaan ku iri been ayaan u sheegay sababtoo ah arrimahan kama hadli karin. waxaan ka baqaayay haddaan arrimahan ka hadlo inay dhibaato isoo gaarto. sidaa daraaddeed waxaan ku iri gabar saaxiibtay ah ayaa waxay ku dhimatay shil gaari anoo weliba meesha ay ku dhimatay joogay. sidaa daraaddeed xanuun iyo naxdin aada u weynaan ka qaaday. xitaa ma raba inaad i weydiisaan qaabka wuxuu dhaceen oo idinkaga sheekeeyo. inta i daynayso xanuunkan i daynaayo fadlan ii dulqaata yaan laygu qaylin yaan waxba lay weydiinin ayadoo doonaysa inaan la fahmin waxa haysta iyo dhibka haysta. muddo ayaan saas ku joogay ayay tiri. baaritaan badan ayaan sameeyey, wax akhris badan ayaan sameeyey, dhegeysi badan ayaan sameeyey. tafsiirka iyo waxyaabaha lagu macneeyey aayadahan iyo kalimaadkan ku jira kitaabkan nashiid al-inshaad iyo xisqiyaal ayaan raadiyey. waxay tiri maalintii dambe waxaan internetka ka helay nin baadari ah oo ku takhasusay arrimaha ku saabsan baybalka iyo su-aalaha laga keeno iyo waxyaabaha la midka ah. ayaan waxaan u diray fariin su-aalihii ku qoran yihiin. kadibna waan ismaqalnay oo si toosaan u wada hadalnay. su-aalihii ayaan weydiiyey. toos wuxuu bilaabay tiri meesha uu su-aale iga jawaabi lahaa inuu yiraahdo muslimiinta sidaanay aaminsan yihiin, intay ka dhacday waxaanay yihiin, waa naga xun yihiin, wax aad nooga xun ay aaminsan yihiin, waxaas inuu bilaabo. waxay tiri aad ayaan u yaabay. waxaan ku iri aniga muslimiin kuma weydiin, muslimna anigu ma ihi, kitaab qur-aan kuma weydiin, muslimiin kuma weydiin, islaam wax kaama weydiinin. waxaan kaa rabaa inaad iiga jawaabtid su-aalo ku saabsan baybalka iyo kirishtaanka oon anigu aaminsana adiguna aad aaminsan tahay. marka waxaan kaa rabaa inaad i caawiso qalbigayga iyo walwal badan ay haysta, dhibaato badan ay haysata, inaad i caawiso oo su-aalaha aan qabo aad iiga jawaabtid. waxay tiri ninkii haba yaraatee wax jawaab ah oo uu siiyo wuu waayey. midda kale aniga waxay tiri tafsiirka ay ka bixinayaan kitaabkan iyo ereyada ku qoran waan dareensanahay oo macnaha meesha ka muuqdo oo tooska ah wax 100% ka duwan oo cagsi ku ah ay ku fasirayaan. marka waxay tiri aniga arrintaas maba ahan arrinta ay haysato. arrinta ay haysataa waxay tahay maxaa keenay inaan kitaab xag ilaahay ka yimid dadka dhexdiisa inaan ku akhriyo aan ka xishoodo ama aan dhibsado amaba is yiraahdo dadka geesaha fadhiyo ku maqlaya ku yaqiiqsanaya. soo looguma talagelin kitaabkan in dadka la gaarsiiyo la maqashiyo. soo looguma talagelin kitaab alfaadii iyo ereyada ku qornaaba dadka aan la maqashiin karin sidoo u yahay kitaab xag ilaahay ka yimid. maxaase dhacay? sidoo kale waxyaabaha ka dhaadhacsanaa ayada oo weydiisay waxa kamid ah ciise oo ayada ilaahu aaminsan tahay waxay ahayd inuu gargaaro oo garab isiiyo marka aan kitaabkiisa ama kelmadihiisa aan dadka maqashiinayo oo aan akhrinayo. laakiin taas ma dhicin. arrimo noocaas ay weydiisay iyo waxyaabo ayada ay walwalahay dareemaysay. ninkii wuxuu bilaabay inuu muslimiin iyo kitaab qur-aan iyo islaam ku meeraystay tiri. markii dambe waxaa idhihi tiri waan u jeedaa inaada jawaab ii haynin. weligay ma arag nin shiikha oo qof muslima su-aal soo weydiiyey ee dhahaya baybalka waxaasaa ku qoran iyo kirishtaanka waxaasay aaminsan yihiin. laakiin waxay ugu jawaabaan qur-aanka saasaa ku qoran iyo xadiid ayay ugu jawaabaan. qur-aan iyo xadiid iyo arrimo lamid ay ugu jawaabaan. marka aniga kaama sugaynin inaan muslimiin ila aado. waxaan rabay inaad ii jawaabto sidii qof macnaha kirishtaan wax kaa weydiina oo kirishtaan inaad iigu jawaabto. laakiin arrimo kale ay la gashay. sidaa daraaddeed jawaab iima haysida. waxaan kaa rabaa waxa aad leedahay muslimiinta ay aaminsan yihiin oo qaldan bixin yihiin bal ayaga ii sheeg. wuxuu ii soo qaatay tiri arrin aan la yaabay oo leeyahay waxaa jiri jirtay islaan raabica alcadawiya la yiraahdo oo gabay jacayl ilaahay u qaaday u akhrisay iyo rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo waxyaabo noocaas oo kale ah. qur-aan iima keenin, xadiid iima keenin. waxay tiri aadan ula yaabay. waxay tiri waxaan ku iri arrimaha aad sheegaysid su-aalahaygi jawaab uma ahan. waxaan u fahmay wax jawaaba inaadan ii haynin. marka wuxuu ugu yiri haa waxaad ka heshay muslimiinta iyo kitaabka qur-aanka aad ku qanacsantood ka heshay soo maahan. haa ha ku anfaco ayagaad ka heshay ayagaa ku saameeyey marka ha ku anfacaan ayaga beri ord iska tag. macsalaamaan ku iri tiri sidaan uga soo tegay murugadii iyo walwalkii iyo dhibaatadii waxay tiri iisii kordhay.
waxaan bilaabay tiri inaan sidii usii dhageysto doodihii iyo akhriskii iyo waxyaabihii badnaa aan samayn jiray, laakiin waxay tiri murugadii iyo dhibaatadii sidii ayay iigu taagneyd. muddo markaan joogay ayaan waxay tiri waxaan go'aansaday inaan mar labaad ku celiyo arrintii ahayd inaan kitaabka baybalka ah, weliba aayadaha ay wax ka sheegayaan dadka muslimiinta ah ee xisqiyaal kitaabkaas la yidhaha ku jira iyo nashiid al-inshaad, inaan ka akhriyo bas ama tareen dad ka buuxaan ka dhex akhriyo, weliba cod lay maqlaayo inaan ku akhriyo, si aan u tusiyo in baybalku yahay kitaab xag ilaahay ka yimid oo qof walba oo dhageysta wanaag, khushuuc iyo qalbiga dadka la hadlayo inuu yahay, oo uusan ahayn wax laga xishoodo ama laga yaqyaqsado. sidaa daraaddeed waxay tiri maalin maalmaha ka mid ayaa waxaan qaatay kitaabkaygii baybalka ahaa, waxaan koray tiri bas dad ka buuxaan. baskii markaan koray ayaan waxay tiri waxaan kala furay kitaabkii, weliba waxaan soo bixiyey kitaabka la yidhaahdo nashiid al-inshaad oo ka mid ah cahdi alqadiimka ama qeybta hore kitaabka baybalka ah. markaas ayaan bilaabay tiri inaan kor u akhriyo, cod lay maqlayo aan ku akhriyo. waxay tiri waxaa bilaabatay dadkii geesahayga fadhiyey oo dhan inay ii soo fiiriyaan qaab aan la yaabay, weliba si caadiya ayaan u akhrinaya, aniga ma qaylinaynin, waxba ma samaynaynin, si caadiya ayaan u akhrinayay. laakiin dadku markay erayada iyo waxaan akhrinayo ay dhageystaan, dadka dhan waxay bilaabeen inay soo fiirfiiriyaan. qaarkood waxay is yidhahdeen qof xanuunsanaa, qaarkood waxay is yidhahdeen qof yacni daandaansi wado oo dadka daandaansanaysa miya, qaar waxay bilaabeen inay qosqoslaan. waxay tiri dadkii si qaab aad u yaab badan waxaa noqday qof go'doonsan camal. arrintana waxay tiri waxay ahayd bilow, waxa soo socdo oo igu dhacay ayaa ka sii weyn. daawadayaal, qisada oo aad u dheereeta darteed ma raba fiidiyoyaasha inaan aad u dheereeyo. gabadhan qisadeeda insha Allah haddii ilaah yaraa 2 qaybood ayaan ka dhigi doonaa si aysan aad ugu dheeraanin. halkaas ayaan ku joojinayaa wixii ka qabsaday gabadhii markay kitaabkii akhrisay iyo arrinta ku keentay ugu dambeyntii inay muslimto, iyo dhacdadii gaariga dhexdiisa ku qabsatay oo ka sheekaysay ayaan rabaa inaan qaybta labaad idinkula wadaago. aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin. waxaan idinka codsanayaa in asxaabtiina la wadaagtaan barnaamijkan, sidoo kale subscribe iyo comment iyo wixii aad ii haysaan ee tale iyo tusaale inaad ila wadaagtaan. qaybta dambena insha Allah si degdeg ayaan kusoo gudbinayaa si aan u dhammaystirno qisadan cajiibka ah ee ku saabsan gabadhaas ilaahay soo hanuuniyey ee kirishtaanka ka soo baxday ee muslimka noqotay ee ka sheekaysay qisadeeda. waad mahadsantihiin. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.